والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalayaal insha allahu tacaala iyadoo waqtigu sariixay oo aada loo daahay waxaan idinku soo dhaweynayaa insha allahu tacaala muxaadaradii koowaad ee maanta. muxaadaradaas oo ah midda uu wato astaanta ama magaca mu'tamarku ahna laa taxzan ina allaha macana. muxaadarada waxaan kusoo dhaweynayaa inoo soo jeedin doona sheekh maxamed cabdi umal, falyatafadal mashkuuran. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، الله سبحانه وتعالى أيام هدسك له inaan ammaano oon mahadinana waajib inoogu leh. rabbi subxaana wa tacaala waa ammaano yahay, wuxuuna ku ammaano yahay, waa dhammaystiran yahay oo ceeb male alle subxaana wa tacaala. mar labaad alle subxaana wa tacaala wuxuu ku ammaano yahay nicmooyinka kala duwan ee la tira koobi karin ee allah subxaana wa tacaala uu inoogu nimceeyey. nicmooyinkaas oo ay ugu muhiimsan tahay, uguna qaalisantaha, ugu qiimo badan tahay nicmada diinta iyo islaamnimada iyo iimaanku. intaa kadib walaalayaal, cinwaanka kelimadu insha allahu tacaala sidii horeyba loo sheegay waa laa taxzan ina allaha macana. macnaheeduna uu yahay ha murugoonin, allah subxaanahu wa tacaala ayaa inala jire. kelimadaas ama jumladaas mu'tamarkana cinwaanka u ah, muxaadaradii ugu horreysay mu'tamarkana ah, asalkeedu qur'aanka ayaa laga soo qaatay, khaasatan fii suurati tawba. allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. waxay calaaqa leedahay aayadda iyo sababtay ku timid iyo munaasabadda waa ka hadli doonaa insha allahu tacaala. laakiin aayadda bilowgeeda waxaa lagula hadlayaa nimankii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu ka dhashay ee reer Maka ee rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dacwadiisa la dagaalamay ayaa waxaa lagu leeyahay ilaa tansuruuh, haddaydan u hiilinin oo nebiga aydan u gargaarin ood garabkiisa ka baxdeen
faqad nasarahu allahu ilaahay baa u hiiliyey yacni waxba laydinkama baahanin waay id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayn alla wuxuu u hiiliyey nebiga sal lla lay wasalam markii ay saareen kuwii kufriyey ee gaalada ahaa oo ay ka saareen deegaankii uu ku dhashay iyo dhulkuu ku barbaaray markay ka saareen haaniya tnayni laba midka labeeye isagoo ah isaga iyo nin kala markaa wada socda labadoodoo wada socda ayay saareen oo ay dhulkay ku dhasheen ka saareen wuxuu alle u hiiliyey mar labaad waxayna ahayd markuu saaxiibkii ku yidhi nebigu sal lla lay wasalam laa taxzan ina allaha macana ha murgin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa inala jire markaana allah u hiiliyey subxaanahu wa tacaala qaabkii rabbigu hiiliye waaka faanzala allahu sakiinatahu calayh rabbi wuxuu nebiga korkiisa ku soo dejiyey xasiloonidiisa waayadahu bijunuudin lam tarawha wuxuu alla ku xoojiyey ciidan aydaan arkaynin ciidan aan idiin muuqanin buu alla ku xoojiyey subxaana wa tacaala wajacala kalimata aladiina kafaruu sufla kuwii gaaloobay kelimadoodii iyo mabda'oodii wuxuu ka dhigay rabbi midda hoosaysa wa kalimatullahi hiya alculyaa kelimada ilaahayna waa midda sarraysa subxaana wa tacaala wallahu casiizun xakiim ciwaanka aayaddaasaa laga soo qaatay oo halkaasaa asal u ah waxayna ku tusaysaa oo ay tilmaamaysaa ciwaanku tilmaamaya qadiya taariikhiya oo qur-aanku uu sheegay axaadiista nebigana ku soo aroortay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxayna ahayd saad ogsoon tihiinba rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh makuu ku dhashay dacwadiisuna makay ka bilaabatay makana reerkuu ka dhashay baa deganaa dacwada markay bilaabatay quraysh iyo odayaasheedii way ka hor yimaadeen dacwadii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wakhti dheer buu nebigu magaalada maka joogay oo dacwada ka waday oo dadka tawxiidka ugu yeedhayey oo diinta ugu baaqayay dad yar baa rumeeyey quraysh iyo deegaankii reer maka badankoodna nebiga waa ka hor yimaadeen salawaatu rabbi wasalaamu calayh wakhti markii nebiga dacwadiisu ay ka socotay dhib badan baa nebiga loo geystay salawaatu rabbi wasalaamu calayh raggii raacay iyo saxaabadiisii dhibaato badan baa la mariyey dhowr goor waa kuwa qaxay oo marna u qaxay ardulxabasha mar kaleetana u soo qaxay dhanka madiine u soo hijrooday oo ka soo tegay dhulkay ku dhasheen intaa nebigu maka kama tegin salawaatu rabbi wasalaamu calayh markii ay dacwadii nebiga sal alla lay wasalam iyo mabdii u watayee faafayey qurayshi ay tabar u weyday si ay yeelaanna ay garan waayeen wax walbana intay ku dayeen dacwadii inay sii socoto oy hormarto mooyaane ay waxba ka qaban la'yihiin ayay markii dambe waxay qabsadeen mu'tamar ama shir ay isugu yimaadeen shirkaas baa waxaa lagu qaadaa dhigay oo lagaga hadlay sidii ay nebiga ka yeeli lahaayeen salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo dacwadan cusub ee waxay yaqaaneen iyo afkaartoodii iyo caqiidadoodii dhan burburinaysa hadalkii wax la rogrogo go'aan waxaa lagu gaadhay in nebiga la dilo salawaatu rabbi wasalaamu calayh qur-aanku ilaahay ku sheegay subxaana wa tacaala 3 talaa la soo jeediyey